mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa xabsi la dhigay ka hor inta aan la gaarin Isniinta kulanka ay ciyaarayaan Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Hugo Lloris, kabtanka xulka qaranka dalka Faransa iyo kooxda Sportska ayaa lagu arkay inuu qalad sameeyay ama xadgudub kadib markii isagoo cabsan uu gaari kaxeeyay. Saacadu marka ay London tahay 2:20 ayaa booliisku waxa ay qabteen kabtankan oo gaari kaxeynaya isagoo ku guda jira xaalad miir doorsan. Ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa hadda xabsi la dhigay, waxaana xidigan la sheegay in maxkamad la soo taagi doono 11 bisha September ee soo socota. 31 sano jirkan ayaa booliisku waxa ay ka soo saareen warbixintan. Shakhsigan waxaa lagu eedeeyay arrimo ku aadan xadgudub kadib markii si kontarool la'aan uu u waday gaarigiisa. Hugo Lloris oo 31 sano jir ah ayaa lagu qabtay 24 bishan Agoosto Jimcadii isagoo cabsan inuu gaari kaxeynayay. Sidaas darteeda maxkamadda ayuu ka soo muuqan doonaa maalin Talaado 11 bisha September. Spurs ciyaarta soo socota toddobaadka soo socda waxay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaar ka dhici doonta garoonka Old Trafford. Lamana oga haddii ay heli doonaan goolayahoodii lambarka 1 ee Hugo Lloris ama in ciyaartaas uu seegi doono, sababtoo ah shaki weyn ayaa la gelinayaa diyaar garowgiisana ma dhammaystirnaan doono haddii caawa uusan fursad u helin xorriyadiisa.